soo dhawaada saaxiibayaal. Muuqaalkan kooban waxaan rabaa inaan kaga hadlo sidaad ku programmin lahayd simkaarka internetka aad ku isticmaalayso. Fadlan haddii taa markii kugu horeysay channelkan ku soo gaaro subscribe dheh, like-tana waa inoo muhiim si muuqaalkan u gaaro meel fog. Aan gudaha u galno muuqaalkeena. Waxaa laga yaabaa adigana daawanayo inaad garanaysid qaabka loo programmiyo. Fadlan nagu caawi like-ta si muuqaalkeena uu gaaro bartilmaameedkeena. Mahadsanid. Si aad u programmiso, marka hore waxaad tegaynaa setting-ka. Kadib waxaan dooranaynaa connections. Kadib waxaad ka sii dooranaysaa mobile network. Inta aadan tegin mobile network, waxaad tegaysaa sim card manager si aad u xaqiijiso sim card-ka aad programminayso booska uu ku fadhiyo inuu yahay sim card 1 ama sim card 2. Markaad tagto sim card manager, waxaad arkaysaa sim card-ka rabtay inaad programmiso sim card 1 oo ah Somnet. Kadib gadaal ugu laabanaynaa, waxaad tegaynaa mobile network. Kadib waxaan sii taabanaynaa access point name. Hadda waxaan noo dooran sim card 1. Waxaa ku dhufanaysaa qaybtaas kore ee add. Kadib qaybta koowaad ee ku soo baxaysa nameska waxaad ku qoraysaa Somnet. qaybta labaad oo ABN asna waxaa ku qoraysaa Somnet, ama waxaad raaci kartaa LTE. kadib waxaad leedahay okay. haddii aad meel kale wax ku qorto, sim card-ka internetka ma kuu shaqayn doono. Dadka badankood waxaa ka qaldan in qaybta saddexaad ay ku qoran tahay proxy in ay ku qoraan Somnet. Markaas waxaa dhacayso in sim card-kaada internetkaada uusan ku shaqaynin. Kadib markaa qorato labadaas qayba ku qorato, waxaad ku dhufanaysaa saddexda dhibcood. kadib waxaad leedahay save. kadib daaqadan yarta ama kugu soo saaro, waxaad tig saaraysaa qaybtaas oo aan ku calaamadeeyay si uu active u noqdo. Markaas sim card-kaada internetka Somnet waad programmisay. kadib lacag ku shubanaysaa waana isticmaalaysaa. halahaas waxaan kaga gudbay qaybta Somnet. haddii aad u baahan tahay marka inaad programmiso sim card 2 oo ay kugu jiraan ama Somtel ama Hormuud, isla meesha ay ku laabanaysaa mobile network, access point name, waxaad arkaysaa sim card 2 ayaa ka tegaysaa. sim card 2 waxaa noogu jiro Somtel. kadib sim card manager dib uga laabo, mobile network ku dhufo. kadib waxaa ka sii xolinaysaa access point name. kadib waxaad tegaysaa sim card 2. meeshaas ayaad klik siinaysaa. hadda waxaa ku soo baxay daaqad aysan wax ku qornayn oo ah sim card-ka ma programsana. waxaad tegaysaa qaybta add nameska Somtel. ka labaad sidoo kale waxaa ku qoraysaa Somtel. haddii uu Hormuud yahay sidoo kale waxaa ku qoraysaa Hormuud. kadib waxaad leedahay saddexdaas dhibcood ayaad ku dhufanaysaa. lagama baahno sidoo kale inaad ku qorto qaybta saddexaad ama qaybta afraad ama qaybta shanaad inaad sidoo kale magac ku qorto. haddii aad ku qortana kuma shaqayn doono. kadib waxaan leenahay saddexda dhibcood save ayaan leenahay. kadib meeshaas ayaad tig saaraynaa. sim card-kan waa uu ku programsan yahay. dib ugu laabanaynaa. waxaad tegaysaa markaas sim card manager. kadib waxaad qoraysaa mobile data. haddii aad sim card 1 u rabto, Somnet internetkeeda ayaa kuu furmi doona. sim card 2 haddaad dooratana, sim card-ka labaad oo ay kugu jirto Somtel ama Hormuud, wixii alla ay kugu jira ayaa kuu shaqayn doona internetka. sidaas ayaa loo programmiyaa sim card-ka internetka aad u isticmaalayso.